السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkani waa Cream Trading Official oo ah runtii goob aan kula socono culumta tradingka gaar ahaan waxa loo yaqaano forex trading gaar ahaan waxiisa qaybtiisa institutional trading systemka iyo sidoo kale culumta binary and digital optionka oo aan runtii ku barano waxaan isla eegi doonaa insha Allah maanta runtii qodob muhiim ah oo qof kasta oo trader runtii muhiim ah qodobkaas oo runtii ah gaar ahaan ardayda trade gareysa waxa loo yaqaano forex tradingka waxaan ka hadli doonaa runtii qodobka loo yaqaano maxaa qofka ku hayn kara runtii tradingka maxaa ku hayn kara ama qofku inuu forex trader noqdo maxaa ku hayn kara ma inuu istaraatiijiyad boqolkiiba shaqeynaysa helaa ma inuu runtii helaa signals intii boqolkiiba shaqeynaya maxay tahay runtii ma inuu lacag badan haystaa ardayga maxaa looga baahan yahay si uu u noqon karo qof profitable trader oo markaasi guul taaban karo ka xaqiijin kara tradingka waxaynu oran karnaa waxa ugu muhiimsan qofka ku hayn kara runtii waxa uu yahay waxa loo yaqaano risk managementiga ama in uu qof isticmaalo oo uu garanayo wuxuu isticmaalaya runtii waxa uu yahay si aynan qodobkaas oo faahfaahsan uga hadlin marka hore runtii kaalay dhanka YouTube-ka oo aan runtii soo gelin doono casharaan badan oo kaga hadlayo isla systemkeena soo gal qaybteena Cream Trading Official si aan runtii aynu soo geliyo casharo ku saabsan qodobkan aan doonayo inaan dul istaago saaro subscribe si aad runtii uga mid noqoto daawadayaasha ku xidhan kanaalkeena kana faa'iideysto runtii casharada aynu soo gelino runtii soo kalena furo gambaleelka furo si aad uga mid noqotid runtii daawadaha ugu horeeya runtii course-kaas ka qayb qaato okay waxaynu sheegnay qodobka ku hayn kara inuu qofka yahay waxa loo yaqaano risk management macna risk management wax badan baad maqashiin oo leeyahay risk management samee risk management samee macnaheedu ma aha shanta trader galayso afar ku guuleyso midna khasaar ama saddex ku guuleyso labana khasaar ma aha muhiimadu ama macnaheedu ma aha in labana ku guuleyso labana faa'iid macnaheedu runtii waa ka duwan yahay sidoo kale qodob dadku isticmaalaan ba jiro marka risk management la soo qaado qofka wax niyadiisa ku soo dhacaya jira oo ah stop loss-ka iyo take profit-ka qofkii waxaad arkaysaa isagoo isticmaalaya 50 bib 60 bib 70 bib oo isla marka qaar kood macna hadara kula waxaan isticmaalaya risk management iyo waxaan doonayaa trade inaan faa'iido 100 bib ama 200 bib inaan qabto macnaheedu qofkaas risk management waa isticmaalaya laakiin real risk management sax runtii ma isticmaalayo risk management sax saad u isticmaasho SLK waa inuu noqdo runtii wax yar oo runtii naqan waa inuu noqon karo TB gaagna waa inuu noqon karo TB profit fiican aad ka qaban karaysid oo aad ku xisaabtami karaysid maxaa ka xaqiijin kara hadda waxaan kula wadaagi doonaa sadaba iska u dambeeyaan anigu bilihii u dambeeyo kale aan isticmaalay iyo risk management ka runtii ku isticmaalay iyo reason ka anigu isticmaalay because reason ka ayaa wax walba ka muhiimsan inaan risk management isticmaalo haddaan halkan imaado gaar ahaan qaybtan Telegram-ka oo ah qolka aan signalska ama waxyaabahaas oo kale inta badan aan ku best gareeyo trades ayaa runtii eegi doonaa bal aynu qaadanay iyo runtii si u dhacayeen hadda trade-kan oo kale u fiirso waa Euro USD trade aynu ka qaadanay baa jiray waxaynu isticmaalaynay waxa loo yaqaano risk management sax trade-kan waxa lagu talagalay 9 bib oo SL iyo 46 bib oo runtii TB macnaheedu waxa uu yahay trade-kani xitaa hadii uu SL igaga dhaco waxaan khasaaraya runtii waa 9 bib tusaalahan inta badan anigu waxaan trade gareeyaa saddex lacagood baan ka saddex trade baan ka qaataa lacagta saddexda trade aan qaadanayo min 9ka bibi maxay noqonayaan runtii waxay noqonayaan wax litala xitaa hadii saddexduba ay SL kaaga dhacaan waxay noqonayaan runtii waxaan badnayd oo 22 biba ay isku tagi doonaan hadii ka waran aad sameynaysid waxa loo yaqaano اللهم استعاني waxa loo yaqaano TB gaagi muxuu isla noqon doonaa wuxuu noqon doonaa saddexda trade macnaheedu dad ku guuleysato waxa ay ka dhigan tahay in aad lacag fiican aad runtii ka qaban doonto oo trade-kaas aad lacag fiican aad runtii ka qabatay reason-ka aan sida tan ugu dhigayna runtii waxa weeyaan structure-ka suuqa iyo rules-ka kale trades-ka ku qaadan jirnay institutional system-ka ayaan runtii isticmaalay qodobka kale aan doonayo inaan dadka ka saxo ama aan ardayda ka saxo waxa weeyaan waxa loo yaqaano Allahumma ista'aanay intrigue marka trade-ka ka qaadanayso oo reed waxa la isla ogyahay candle cayiman oo institutional candle loo yaqaano ayaa runtii jira ama order block ama IC candle ama candle adigu waxa doonto buu bixiyo
already laisla yaqaan baa jira macna qodobka waxaan usoo qaadanayaa mararka qaarkood waxaad arkaysaa dadka qaarkood oo welibana laga yaabo inay macallimiin yihiin oo haddana ku odhanayo lacagaha qaar baa loo isticmaalaa 40 bib qaar baana laga yareyn establishkooda 50 bib qaar baana laga yareyn 60 bib macnaheedu waxa uu ka dhigan yahay qofkani cilmigii uusan u lahayn tradeku meesha uu ka dhaqaaqo ayuu ku dadayaa marka uu ku leeyahay lacagtan establishkeedu waa 70 bib taas runtii waa khalad cad ayaan runtii odhan karaa oo runtii laga been sheegay sababtuna runtii waxay tahay lacag kasta waxa ay ka dhaqaaqdo order blogga haddii order bloggaas aad establishkaaga 5 bib ka dambaysiiso macnaheedu waxa ay ka dhigan tahay inaan lagu dhufan karin asalkaaga haddii lagu dhufto macnaheedu wuxuu ka dhigan yahay dee meeshan aad dhigatay ayaan raahayn the real order bloggii saxda ahaa aan runtii ahayn haddaad lacagta order bloggeeda xaqiijiso ruliskeeda kalena xaqiijiso waxa waajiba runtii in aan order bloggaaga laga hoosmarin hadda lacagtan oo kale lacag aynu isticmaalna bay ahayd reasonka aynu isticmaalnay muxuu ahaa 15 bib ka dhiganay reasonka waxaynu ka dhiganay wuxuu ahaa order bloggeena ayaa halkan oo kale ku aadanaa ruleski kale lacagta haddii liquidity tahay hadday structure-kii tahay waxaas oo dhan runtii hadda ma doonayo inaan dul istaago oo waxaan doonayaa runtii course isku dhan oo cayiman oo ilaa SL-ka ilaa TB-ga la gaarsiinayo runtii inaan insha Allah inoo diyaarin doono gaar ahaan qaybta ardayda private-ka laakiin maxaa lagaaga baahan yahay waxay tahay hadda anigu tradekan goorta aan qaatay waxa ay testiga markuu soo sameeyay ama soo noqodka SL-ka sababtan reasonka 15 bib uga dhigay waxa weeyaan in aan lane-kayga yara madow 78 ka aan ka dambaysiyo SL-kayga 3 bib oo spirit-ka ugu talagalina aan ka qaado ama se aan ka sii hoosiisiyo okay lacagaha aan oran karo 15 bib ay ugu tagaan ama 20 bib ay ugu tagaan waa lacagaha ugu badan aan qaato ee u goolku runtii kamid yahay waa laga yaabaa in trade-kayga ama SL-kayga uu noqdo 15 ilaa 20 bib laakiin trades-ka kale oo dhan waxa runtii khasaba inuu noqdo 10 bib 7 bib 5 bib inuu dhaxeeyo hadda lacagtan oo kale laftarkeedu waa GBP AUD baan filayaa 13 bib ayuu ahaa SL-keenu oo runtii aynu ku qaadanay TB-geennuna wuxuu ahaa 82 bib ayuu runtii ahaa TB-ga welibana ugu sarreeya aynu ka doonaynay haddaan lacagtan oo kale iyadana eego 7 bib ayuu runtii SL-ku ahaa waxaan doonaya afterteedii haddaan meelahan ka helo inaan soo qabto hadda lacagtan oo kale u fiirso lacagtan oo kale waa euro okay waa euro AUD baan filayaa waxa uu ahaa SL-ku waxa uu ahaa tan 15 bib uu ahaa reasonku 15 u ahaana runtii ardayga runtii qaatay sidaan u trade gareyno ama structure la isku waafajiyo fursadda directionka suuqa saxda ah iyo pullback-ka socda la isku waafajiyo qofka runtii dhigtay si fiican ayuu runtii u fahmi karaya okay hadda waxaan eegi doonaa bal lacagaha qaarkood hadda tan oo kale u fiirso runtii waa lacagta loo yaqaano AUD Canadian waxaan joogaa 30 minute ama time frame-ka hoose ayaan joogaa structure-kan waxba kaga noqon maayo SL-kaygu waa 7 bib TB-guna waa 60 bib macnaheedu waxa ay ka dhigan tahay runtii haddii aan ka qaato 3 trade ama 2 trade intaan doonaan ka qaatay oo macna tusaale ahaan hadda 3 times 7 maybe 21 ay noqonaysaa 21 haddaan loss gareeyo macnaheedu waxa uu ka dhigan yahay oon faa'iido macna waxaan lacagta ma soo qabsaday waxaan ka galay 3 lacagood baan ka galay 3diiba waa loss gareeyay maalin kalaan imi iyadii baan galay 3diiba waa loss gareeyay maxaynu haynaa maybe 42 SL ayaan runtii aynu haynaa lacagta inta trade baan ka qaatay waxaan ka qaatay 6 trade ama 2 cisho kala duwan oo min 3 iyo 3 ayaan ka qaatay maadaama aan ka qaatay afartiiba inaan 2 cisho loss gareey ka soo qaad oo 2 cisho min 3 trade loss gareey haddana SL-kaygu waxa weeyaan 42 bib oo kaliya ka war haddii maalin saddexaadii markaas sidan oo kale haddana aan u qaato oon win gareeyo TB-ga muxuu noqonayaa 3 trade oo min waxaad ku dhufataa 60 waxay noqonayaan 180 bib ayay noqonayaan 180 bib waxaad ka jartaa waxa loo yaqaano 42 bib aynu ku qaadanay labada cisho kala duwan waliba aha maxay baaqi noqonaya waxa ii baaqi noqonaya 130 bib oo profit ayaan runtii ku jiri doona oo runtii ii profit noqon doona macnaheedu waxa uu ka dhigan yahay marka lagu leeyahay risk management isticmaal waa inaad sida tan u fikiri karaysaa is not ma aha tradeska oo dhan weyn karee ma jirto qof tradeska oo dhan runtii weyn kareeya oo TB miran qaata ma jirto aniga kan u fiirso hadda aniga kan kale SL-ka ayuu ka dhacay ma filaya sida muuqata laakiin u fiirso muxuu ahaa 12 bib SL-ka ka dhacay macnaheedu muxuu ka dhigan yahay haddii 3 jeer ay xitaa SL-ka ka dhacdo hal mar oo aan 70 ama 60 bib ka qabto ayaa waxay u dhigantaa 10 jeer aan loss gareeyay ayuu u dhigantaa hadda lacagtan kale u fiirso waa GBP CAD
GPB card traders ka ardayda uu kamid yahay maxaynu sameynay SLK-gu wuxuu ahaa kaliya 10 pip buu ahaa 10 pip ayuu runtii ahaa TB-geenuna 80 pip ayuu runtii ahaa ama 80 pip ayuu ahaa 10 kan pip hadduu igaga khasaaro tusaale ahaan 10 trade baan qaatay 10kii waxaan loo skriyay wax ka soo qaataa 8 kamid ah loo skriyay oo deyn kastaan ay dhacayba laakiin waxa ka soo qaataaba inaan 8 kamid ah loo skriyay 8dii aynu loo skreynay maxaynu haynaa waxaynu haynaa 80 pip oo isra macnaheedu weeyaan maadaama 80 pip oo isra haysid waxaad ka soo qaadaa inaad laba trade win garaysay oo 10kii aad laba win garaysay 8na loo skreysay isweydaar macna halkay ka ahayd inaad 8 win garaysay labana loo skreyso isweydaar ka dhig maxaan hayaa labadii aan win gareeyay maxay noqonayaan waxay noqon doonaan 160 pip 160 pip oo TB iyo waxaan hayaa waxa loo yaqaano 80 pip oo minus markaad kala goyso maxaa soo bixi doona waxa soo bixi doona farqi ah in aad ku jirto profit runtii cayiman oo la garanayo oo runtii aad TB fiican ku jirto hadda kala u fiirso waanada beer kale waxaan filayaa inuu 5 pip ahaa halkan 8 pip ahaa oo reason baan inta badan u isticmaalaa TB-ga laftarkiisa oo maaha runtii wax iska sii deysan TB-gaaguna maaha si uusan SL-kaagu u sii deysnayn ayaa la doonaya in TB-gaaguna runtii uusan u sii deysnayn hadda lacagtana kala u fiirso 13 pip oo SL-kaagu ahaa 85 pip oo TB-gaagu ahaa waxaan runtii inta badan waxa ii raacaya ama aan isticmaalaya waxa weeyaan sida tan u isticmaalaya in aan risk management-kayga la socon karo inaan risk management-kayga la socon karo in waxaygu runtii noqon karo trade-kan gelaya inuu noqon karo trade runtii aan ku kalsoonahay oon garanayo in ayadiisa ilaa iyo macna suu sameeyo haddaan u fiirsado the last day maanta oo la joogo haddaan u fiirsado kan oo kale waxa uu ahaa filayaa this one is yesterday buu ahaa filayaa oo AUD Canadian muxuu ahaa SLK 9 pip buu ahaa muxuu ahaa 9 pip kaliya ayuu runtii ahaa oo soo noqday kan lagu soo noqday in raaco kadibna 9 pip SLK-gu noqdo 9 pip marka uu soo noqdo waxaan filayaa inuusan xitaa wax diro weyn ugu sameyn ama xitaa 2 pip uusan dhaafin meeshii doonayay kaliya uu si sax ah u dhaafay oo aynu runtii 40 pip 730 pip oo kamid ah ka qabsanay oo runtii uu seen doonayay oo noqday okay kan u fiirso waxaan filayaa inuu kan ahaa maantadan aan joogo ama haddadan aan sharaxay inuu ahaa walow TB-giisu yara maadaama time hoose tigay wuxuu ahaa SL-kaygu 7 pip TB-gayguna 30 pip ayuu runtii ahaa oo waxaan filayaa lacagtan aan hadda dib joogay inay ahayd oo aan hadda gacanta ku hayo inay tahay oo hadda TB-gii wax yar ka hor gaadhay haddaad sida tan risk management-ga isticmaasho waxaad xaqiijin kartaa inaad gaadho guul la taaban karo training-kana runtii guul la taaban kara ka gaadho laakiin iska ilaali runtii inaad isticmaasho waxaad arkaysaa aan runtii inta badan aan ka yaaba waxa weeyaan dad isticmaalaya wuxuu ku leeyahay waxaan isticmaalaya 40 pip oo isla 50 pip oo isla 60 pip oo isla macnaheedu waxay ka dhigan tahay qofka hadduu laba lacagood ama laba trade saddex trade isku xiga hadduu khasaaro trade-kiisaas uu kaga niyad jabaya haddaad saddex trade isku xigta khasaarto trade dambe in lagu aad gashaa waa haba yaraatee ma jiri karto واي sababtu tahay macna marka 3 trade oo 60 biba khasaarto macnaheedu imsa biba waxa haysaa 180 biba wax si cararaysa minus 3 biba si cararaysa goorma ayad 180 ka bib recover gareyn kartaa laakiin maanta oo dhan haddaad sida taas runtii smart think baa loo yaqaanaa ama inaad si caqli badan runtii aad u fikirto ay runtii waxa kana sharaxay runtii loo yaqaanaa okay waxa kale runtii ka caawinaysa inaad san u isticmaasho waxay tahay waxaad isticmaalaysaa everyday waxaad heli doontaa trades sida runtii dhacda oo maalin kasta tradeska waxay noqon doonaan trades cayiman oo runtii aad hesho oo everyday trades baad runtii heli doontaa oo aad ka faa'iidi doontaa runtii runtii waxaan doonayaa si aad qodobadan oo sharaxayo runtii casharo aan nooga soo diyaariyo aan runtii kugu soo geliyo dhanka YouTube-keena ku soo biir kanaalkeena kamid noqo runtii si aad casharada kale aad runtii u heshid ama qodobadan aad sharaxayo aad runtii uga faa'iideysatid oo okay inta insha Allah xiisad lamida ku kulmi doono waa channelka insha Allah share gareysaan oo dib badan runtii gaarsiiso si casharo badan aan runtii la wadaago aad soo kale kamid noqoto bahda Telegram-keena ama channelka Telegram-keena aad kamid noqoto casharada soo geliyo Facebook page-keena aad description-ka kaga soo biirto wixii su'aalo inta dheerna insha Allah aad comment-iga igala soo xiriirto. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.